اوكي هلو مع سلامة dadkii meesha joogtiin salaam wani salaam kulli inta waa 252 Guna Corner halkaan waxaa ka helaysiin updates iyo information ku saabsan kooxdeeda jeclahay Arsenal. Okay, xagee ka bilaabna maalmahanayta wallahi Arsenal waa fashilmay si fiican ma fahamtay maadaama hadii la fiiriyo xataa table-ka waxaa joognaa hadda for example position tomishanaad waxaa nalaga raayay 8 jeer goolkeena waxaa dhalanay 12 gool waxaana laga dhaliyay 18 gool hadda waxaa ku jirnaa goal difference waa -6 so hadii la fiiriyo la soo koobo seasonkeena si oo relegation battle ku jirnaa hadda aniki iyo dadkan la dhahay Burnley iyo Brighton and Hove maaragtay is cariirinayno dadka badankood waxay dhahay Arsenal maadaama problemka waxa waaye Mikel Arteta ama baleeriyaasha mugtahay so aniga hadda ra'yigayga waxay ila tahay Mikel Arteta ma aha nin u qalmo inuu Arsenal hadii la team maaragtay muu qalmo maadaama Pep Guardiola hoostiisa joogay dadkana waxay ku caayaan ninkan nin oo maaragtay barab oo wax ma ahan oo la yaqaano maxallahay koonki iyo waxaan ibanooniga meelaha dhigaa so waska ogta dadkeena mugtahay laakiin hadii la fiiriyo hadda waxaan hadii fiiristo saddex jeer lose gareena the last meeqa waa kow laba saddex afar last 5 match shanta game ugu dambeysay saddexana laga raayay halna maxaa lahay draw ahead kan ugu dambeeyay waa laga raayay mugtahay halna oo ogtahay Manchester City seenoo gashay hadii matchka aniga ma fiirsan maadaama hadda aniga Asia joogo time difference-ka laakiin hadda waxaan sugaysaa Boxing Day Christmas marka laga baxo December 26 waxaa game la ciyaarona London Derby oo hadana Chelsea waa maaragtay koox weyn maadaama hadda baleeriyaashooda Chelsea oo markino si fiican maris kulli isla ay shaqeynayeen laakiin hadda maadaama xiriis way fashilmeen laakiin still waa maaragtay dad oo karti leh waa mugtahay waxay qabaan upfront Werner waa nina kana hayo Kai Havertz maaragtay oo loo bixiyay Shai Havertz markay dadku caayaan maadaama oo xiriis caata yahay Premier League la qabsaneen maaragtay proteinki waxa saytay ma cunaa malena laakiin hadii la fiiriyo koox yar waaye markii la hada coachkooda tababarahooda waa yar yahay Frank Lampard laakiin anigana maxallad problemka haysto waxa waaye difaaceena waa laciif David Luiz madaxa maaragtay laga jibiyay هو soo naqday laakiin still wax ma hayno xalli xataa maxallahay wiilkan yar oo maxallahay Gabriel Martinelli markuu ciyaarayay first half si fiican u ciyaaray laakiin straight away markii injury waa maxallahay waa la boobsi rush too much lagu sameeyay sheekada xataa markii la fiiriyo Thomas Partey markuu noo imaaday game ka Tottenham dad badan oo asiga aad u bixinayay mugtahay laakiin aniga aad ilma yahayn Mikel Arteta wuu ogaay inuu Thomas Partey maadaama oo maxallahay oo dhaawacsanay markuu dhaawacsanay maxallahay hamstringka laga qabtay gaayaan inuu si ciyaar waa dabaalin mugtahay so waana la ceebay maadaama xataa dil fiiri London Derby oo Tottenham oo aniga nacabnahay waana la ceebay again aniga waxay la tahay hadda maadaama hadii la fiiriyo seasonkeena wax iska bedelayo hadda January wax yara ka dhiman waxay la tahay maadaama suuq wal furo transfer market-ka aniga waxa ra'yigayga waxay tahay in Mikel Arteta waa inuu baxo ko uma qalmo hadana maxaa lahay behind the door sheeka oo caadi hina socoto xagga markina Mesut Ozil waa laga bixiyay sheekada dad badan waxay dhahoyn sababtiis waa Benoni iyo ciyaartiis ma fiicno Benoniga kadama ordo hard working ma ahan mugtahay iska lazy laakiin aniga waxay la tahay maadaama wax political inay ku xiran tahay laakiin hadana William Saliba حتى هالجيم أو عيارين under 23 وجوجا ولي وبربلام فلورين بالوغان إنه عياره واي like every day قاعد محسوسة فويا ويليان أنا قبل حنا هذا ديل فيري كلاب أرسنال وحنا قناه retirement home for Chelsea players هو شيء كتير صعب مقطع meals on wheels صعب so ديل فيريو كلاب كنا سيد الله صعدا مال دير ما أهدينا هذا وأنا
la sagaray Mikel Arteta aniga la tahay waa hadda last waa finish xalay waxay ahayd Carabao Cup cupka waa quarter final cupka hadii raayeen xataa way noo fiicnaan lahayd maadaama maxaa lahaay moraalkii waxa naga mijibi laheenin hore u sii socolayeen mogtahay laakiin hadii la fiiriyo hada waxa afar gool la dhaliyay hadana waxa uu daranba goalkeeper-ka hada oo noo soo safna number 2 laga dhigay Ronaldo waa goalkeeper fiican maahan meeqa lagu soo gaday waa 1.5 million ya dadka waxay dhahaan hadii oo wax raqiis gadatid mar labaad wax soo gadanay mugta laakiin hadii oo wax oo markina price fiican ku gadatid mar fiican ay ku joogaysa meesh mugta so gaagan inta wax lagu soo gaday 1.5 million hadana waxa sii gadnay number 2 geena u fiicnaa aniga ila tahay waa the second best number 2 Premier League oo dad badan hadda dhihayeen waa Martinez Emi Martinez Arsenal wuxuu joogay 10 sano wuu aamusnay hooshii watay complain ma sameeyeen wax dhan like guy wuxuu ahay mogta Arsenal ka saay DNA-giis waa Arsenal kabacdi waxa la okay Aston Villa loogi Aston Villa hadda sanadkan hoose u dhacaysa hadii la fiiriyo Aston Villa maxaa la position kooda horta intee waa fiirina okay Aston Villa shii sagaal ay joogan hadda de okay striker kooda wuxuu waa si shaqeynaya laakiin waxay la tahay inay hoos soo dhaadhacayaan laakiin hadii la fiiriyo waa gadnad 20 million hadii la fiiriyo sanadkan 2020ka 20 million goalkeeper lagu gaday Premier League waa wax fiican ma baahanbo gaaga waxay ku gadna 45 million hadii la fiiriyo because dad badbaleeyaal badan jiro oo 45 xataa oo u qalmin gaaga netin goalkeeper fiican wahay oo dhir badnaay oo xoog badnaay hadda wiilkan ay daranaysan xali Riyad Mahrez free kick oo soo tuuro saaxib gacantiisa waa butter buuro banonigo baq goolku dhaxgalay two mistakes laba mistake xali waa caadi embarrassing saaxib so maadaama hadii la club fiican aan nahay waxa sayid aniga hadda waxa aaminsanahay clubkaygi waa club mid table ah waxaan ahay top 10 club manihin top 5 iyo top 3 waa laga baxay saaxib hadii la fiiriyo Arsenal markii ugu oo mar hore ahayd 1998kii 2000 waxa joogay Thierry Henry Petit joogay Overmars xataa markii la 1989 Nicolas Anelka wana soo maray Patrick Vieira oo dad waxa oo la kasay oo xoog leh oo maxaa lahaay Mr Arsenal Tony Adams joogay Nigel Keown hadda waxa soo haray dad oo maaragtay oo daciif ah Mustafi iyo David Luiz iyo wala baaba saaxib wax lagu ma hayo meesha waxaan jeclahay dadka fiirsanay hadda inay comment igu soo qoraan meel raacsantiin in Mikel Arteta la buriyo hadii la buriyo ya ku bedel lahayd aniga waxa ay first choice waxay ii ah Massimiliano Allegri waa maxalla ninkanati coach Italianka ah wuxuu coach u ahay Juventus markuu Paul Pogba joogay nin oo difaac si fiican u yaqaan waay hadii la fiirsi Italianka badankooda banonigooda waa very slow ma fahmino laakiin defense iyo technique formation ka sameysada qatar ay ku yihiin so aniga u baahanahay hada structure fiican ma fahmo so aniga Allegri number 1 choice ah number 2 waxa ka dhigi lahay Ralph Hasenhuttl oo joogo Southampton waa coach fiican wuxuu ka imaaday RB Leipzig waa coach attacking football waxay shahbada sameynaysiisay Jurgen Klopp style-kiisa waa style oo very German camal hadii fiiris xataa Julian Nagelsmann ma lahay magaciisa waa ganome same system camal ciyaaraan waa very high pressing hadda Southampton dad waxa uu jooga hadda fiiris Ward-Prowse iska okay waa like waa one oo maxaa la set piece qatar ku yahay Shay Adams Theo Walcott Arsenal rejects saasoo ku dhigay ma fahamtay so Balerial hadda waxa uu joogo gaaga Mali Yusuf Janapo oo madaxa oo cad marsaday dad oo Balerial hadda wuxuu ka keenayaa dad oo ma arkin oo kartidooda xataa high lenin laakiin uu bushgareenayo mugtay waxa moral waa banoni markii la fiiriyo hadii teamka happy yahay qof kasta happy yahay oo shaqadiisa sameysanayo oo u urday teamka waxda meel dheer ay garay mugtay like Arsenal gees oo socona gees le oo socona dhaxdeena joog Mohamed Elneny bashiqta soo tagay lixbil هذا الحلو oh my god he's amazing وانين في عن كوبديس of course محمد النني وحلو بدل محمد السايدويز انت بس بدحت مذكت بدحت بس هرو مصعد هذا داني سبايوس وحكسو دينسني ريال مدريد لكن وبحي سمركه ونقد ريال مدريد هذا هو سو سانجري again اوكي وحيريس وصفي عنو عيار لك بروبلم وحواي وروريك سنه عليه بس وروريك there's no penetration off ماشي قالها بوكس كمان Olivier Giroud Chelsea وجوجا
Olivier Giroud maxaa lahay gaagii Evra Sky Sport wuxuu dhahay Giroud haddoo magaciisa la dhihi lahay Giroudinho oo ahay lahay for example Brazilian wuxuu magaciisa meel dheer like hadda fiirisid gaagaaneti asigi iyo Michel Platini isku maxaa lahay isku gool elihiin isku goal miss appearance I'm not sure Francisca hay u yahay markii la fiiriyo that's why Didier Deschamps national team qaranka kooxda France waa very high asiga markasta la ciyaarsiiyaa mogtahay so markuu joogay cross masiineen hadda markuu Giroud baxay qof oo madax ku dhalinaya Arsenal ma leh so hadii la fiiriyo waa wax dabaalimo mogtahay maxaa lahay waxa ciyaarayna sidii ku sheegay December 26 waxa la ciyaarayna Chelsea maxay kula tahay Chelsea ma ka raay karnaa drome aanaysa aniga waxay la tahay inay oo Chelsea horta dhulkan waxa xaqiiso hadii la dhaho Arsenal baleerka qabno moraalka teamka naga jabay dad waxa uu egnahay oo daciif oo maaragtay oo maxaa lahay waa hipsters banoonigeena waa vegan style saaxib dadkan Chelsea waxay cunayeen protein iyo hilib iyo maaragtay cross anigana waxa cunayna maxaa lahay walnuts iyo almond iyo waxaasaytii waa dad laciifana hadii oo maarkino laga raaynayo waxa jeclaalahay in laga raayo si oo xoog badan laakiin waxa ka wada xoog maxaa for example we have to play well banooni mugta qof raayna qof laga raayna waa okay ama draw dhaxda laga 50-50 laakiin at least hadii laga raaynayo waa inaan si fiican u ciyaarno mugtahay qof walba waa laga raay karaa laakiin systemkeena waa qarab striker ma haysano Aubameyang hada injured waaye Lacazette kama filna inuu wax dhalanayo the only person oo ciyaaryaal waa ciyaaryaasha kuwa yar Bukayo Saka waa nin Arsenal hada ugu shidan hadii la fiiriyo banooniga qabsana dirto oo kor kor socda mugtahay laakiin hadii la fiiriyo hada Martinelli injury oo imaaday ma ciyaarayo aniga waxay la tahay inuu formation ka xataa qasayo so aniga wallahi hadii la fiiriyo I'm not very hopeful misdahay waa Chelsea waa ka raayna laakiin you don't know Arsenal leeyahay maxaa la marmar kora joognaa marmar hoosa joognaa marmar dhax lama ka saay mugtahay waa maqaayad oo maxaa lahay hal mar tagaysa bariisku fiican yahay mar labaad una qanaysa bariisku sokor laga buuxiyay saaxib waa sheeka dheer okay anyways hada asaas ku sii ku dhamaanayna showgana hadii maxaa la wuxuu sabsan yahay sidii ku sheegay kooxda Arsenal maadaama Arsenal supporter ay jeclahay iyo qowb kale xataa oo sporti ku saabsan transfer market-ki iyo baleeyaasha iyo matchaasha kale oo lagu ciyaaray caadi aniga very big football fan ahay so ila soo xiriir fadlan dad comment igu soo qor su'aashaada ku weydiinaya waxa waaye for example saadaashaada maxay tahay Arsenal iyo Chelsea score-ka hoos ku soo qor aniga waxay la tahay maadaama laga raaynayo 3 iyo ever I know negative ahay laakiin I think 3-0 laga raaynayo saaxib because teamkeena waa caadi ma ahan also Mikel Arteta yaa ku bedeli lahayd maadaama hadii la tababaro ama coach hadda saasa ku soo gabagabeynayna showganayta waa maxaa la show ku saabsan kooxda Arsenal maadaama Arsenal supporter ahay laakiin wax kale oo football as a whole waa niisoo gudbinaya xagga tahay marketka iyo baleeyaasha iyo qiimayaasha la ciyaaray fadlan nagu soo xiro subscribe like share samee so maxaa la labada su'aal ni weydiina waxa waaye saadaashaada marka la Arsenal prediction-kaada maxaa waaye aniga waxay la tahay in 3 ever na laga raaynayo 3-0 hoos ku soo qor Arsenal iyo Chelsea qof ka raaynayo also Mikel Arteta tababarayna Arsenal yaa ku bedeli lahayd aniga laba qof aan sheegay misal 3 laba ila tahay fadlan hoos ku soo qor yaa Mikel Arteta hadii la buriyo ku bedeli lahayd kooxda Arsenal okay nabadgelyo daday saas ku ognahay peace